isaguna waxa weeyaan ghaniyun cank inuu isagu ka kaaftoomay isla markaasi ilaahay subxaanahu wa ta'aala markaad baryayso waa inaad ogaato in ilaahay azza wa jalla uu awood u leeyahay inuu ka ajiibo waxa weeyaan adiga kula weynaan arrinku intu doono hal leekaado wax weyn adiga ha kula noqdo laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax ku adeegi ma jiraan kolka markaad ilaahay baryayso ilaahay aad tuugayso ogow oo yaqiinso ayana noqon tajriba ayana noqonin aad ilaahay tijaabinayso wal ciyaad billah talo ilaahay mi aqbali misa aqbali maayo waxa weeyaan waa inaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala ogaato in ilaahay uu ka aqbalayo ducada waanu iman doonaa masaladaasi طيب waxa kale kamida shuruudda ducada waa muhiim weeyaan in ducada waxad gudubi aanu ku jirin cudwaan oo ilaahay markaad barayso waa ilaahay waa caadil weeyaan ilaahay waa caadil marka ilaahay markaad gacmaha aad u taagsada ilaahay waxa isi ilaahay hebel baa idulmiye iga aargud ilaahay saas oo kale waa in ducadaada iyo baryada aad ilaahay baryayso ee toogayso cudwaan iyo xadgudub waa inaanu aanay ku jirin waayo ilaahay duca xadgudub iyo cudwaan iyo gardarra ay ku jirto ilaahay ma aqbalay ilaahay xaqiisana gardarrada lagama ictiraafsana ilaahay xaqiisa gardarrada iyo cadli darrada iyo xadgudubka iyo xuquuqda dadka kale oo la dhaco ilaahay agtiisa lagama ictiraafsana wama rabbuka bidhallaami lil'abid saasa maalinta qiyaamaha ilaahay uu bilaadminka isku keenaya si uu ugu magaranaysaa xitaa xoolihii loogu garnaqaayo ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إلهي يكون معتدين تا حد جذبك كردع إلهي سبحانه وتعالى ما تشعلا طيب حد جذبك محا كمية الدعاء اللي يقول حد جذبه تصالة يا شيخ محمد إنه شيء يا شيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وعيد مثل كيو كلا هدوق في كل دعاء يصير اللهم اجعلني نبيا إله النبي إله يقدق إله النبي كان يقول مايو ويحيى النبي النبي محمد على ختمه marka ducada noocaas inuu qofku ducaysto ilaahu nabi iga dhig ilaahu rasuul iga dhig ilaahu malag iga dhig waa duca xad gudub weeyaan duco xad guduba oo lagu xad gudub laakiin aad tira ilaahu qof saalix iga dhig ilaahu qof taqiya iga dhig ilaahu shahaada igu arsaaq ilaahu cilmi igu arsaaq ilaahu qiyaam leyl igu arsaaq ilaahu soom badan igu arsaaq ilaahu cibaado badan igu arsaaq waa sax weeyaan ducadaasi حد جذب كمتشر لكن قف جد عايزت إله النبي قدك أما إله ملك قدك دعاء داسي ودعاء حد جذب له وشيخنا ليه هدي أي هو يدو أي حبارته إن كيجا لأنه يحب زوجته وأي حاسكيس أي تعلي هاي وحين هو يدي مركز على قبل ما يدعى ده والله أران هو يدي هنا أران إن كيجا وحويان إنه يبار فرا أيام كلها هي مركها وح الله لو وحي أن إله كبر يبوي إله ويجي ليه سكر مسيد مركها هو إن كيجي هبارس لأنه وحش عليه حاس كيسة أما إن أنت هذه جبرت هذه هبارس وايه نين كيجا يزوج كيجا أي تعيش هاي الدعاء ده صحة جذب اعتداء أي كتير إلهنا ما قبله أي ده بلق إله سود عادل كوي حقوق إله سبحانه وتعالى ذلك هو كلسي haddii aabuhu uu inankiisa ama wiilkiisa uu habaaro uu ilaa ninkan salaada badan ee surwaalka yaani gaabiyay ee salaad subax masaajidka tagaya ee magaranaysa meel kale uu ku socdaa ninkani uu habaaro wuxuu ku habaaraya waxa weeyaan waa salaadan iyo salaadan subax iyo muusigii uu dhageysan jiray oo joojiyay TV-gu daawanay uu joojiyay diintii uu ku toosnaaday marka aabayaasha qaar baa isle ilmahan waxa weyn munubli baad ku haysataaba oo wixii aad ilaahay baradba ilaahu ka aqbalay ma ilaahay ka aqbali maayo ilma aad ku nacday salaad iyo soon iyo surwaal gaabiye god la baxay ama gabadh aad in gabartaadii oo ku nacday in xijaab bay xirtay in dhashreer bay xirtay aabo ilaahay ka aqbal maayo ducadaasi limaada waa duco i'tidaa iyo xad gudub iyo gardarro ku dhisan weeyaan taasuu sheekh maxamed salih ibn uthaymin rahimahullah ta'ala leeyahay waxa kamida oo sheekhu kutubtiisa kuwa kale oo ku sheegay xadiiska
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مركو نبي يمن ودري معاذ محو كيري وحيري واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يقول حيري اسكا إلالي دعاء قفك مظلوم كاه قفل الظلميي هبار كيسة اسكا إلالي بوي قفل الظلميي هبار كيسة إنو كهباره اسكا إلالي قفل الظلمي دي هبار كيسة إيا الدعاء ديسة إلهي إيضا وحي جابي ومد حياة إسكا إلهي دعاء سوى أقبلي هبار كا إلهي وكا أقبلي أو كهباره قفل الظلمي دي اسكا إلالي نكو هباره واي عندما سؤال اللي يسوديني وحويان هل هذا على إطلاقه أرنكاس محد بول لي هي من سوى حويان وح الله روح كوها بارو إلهو كأقبليه علمدي إن اللي هن حد بين هذا أو أرن البابود أوذ فرين ما ليس على إطلاقه معها محلو لك هذا أيها الإخوة والأخوات وحلو لك هذا قفك كذلمي هدي أضو دورتي إن إلهي أدبردو ترى إلهي قفك إيجا أرجد إلهي واحد ويديسته إنه إلهي قفك وكاسيو أنتي وكو جيستي إن لأج وكلية أنتي وكو جيستي يدبتي وكو جيستي إن لأج وكلية إنه إلهي كردو إلهي بري هدي أضو أتصاد أنتي وكذلمي لكن وحويان هدي أنتي وكو جيستي يدبتي وكو جيستي دب كم بدن هدي إلهي ترى إلهي كرد مركا يعني علماء وحلين أذيك أي ظالم نقناية مركور أذيك مظلومها لو قدلمي ولو واحد قدبي إما كان ما دام الدعاء دي أدكو حد قدبتي أذيك ظالم نقناية كي هو كودلمينا ونقناية مظلوم بو نقناية حلول كذا نخوة إلهي سبحانه وتعالى سماض إيه أرلاض إيه حق بو إلهي كو أبوري عذبوا وحويان إلهي سبحانه وتعالى أدو يدنا وكهر قلنيا آخرا إلهي وكهر قلنيا وما ربك بظلام للعبيد إلهنا سبحانه وتعالى ظلمك ما تشعله هذا بقى سيد عدد الله أقبله وحويان فيشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان وحلوه مركز إلهي جماعة ذو تاجس الله بريسه دعاء دي وحشرط إنه قد جاء وين الدعاء دي أنا إن كتشرين واحد جذبه أو عدوانه أما قدره وين يعني كتشرين إسك إلهي إن الله سبحانه وتعالى عاد بريضه ودلها ويديسته وحد أقتهي إن الأضو ظالم تهي أو الحد جذب يعدوان يقدره عاد كتشرته إلهي ويديسه وإلهي أقتيسه قدر رضا لكما يقانين شرط قصة حد وحويان وإن قفك إلهي سبحانه وتعالى بريو وهو موقن بالإجابة يسوق يقين سن إن إلهي أجيبه إلهي وحبكم ما أتكسان هرو صويري سيد الشيخ محمد حلقنا كل هنا وأنا كان نقول بريو تجابه وإلهي كنت تجابني سو والعياذ بالله تتبع قلوبته يعني أنا توسنين وايو تتبع إلهي بأوحي إلهي ببريا ترى بل أنا أيقو بالإلهي إن إلهي أجيبيه إنكله واستهزاء وينصاصي marka adigoo qalbiga ka yaqiinsan inuu ilaahay ku ajiibi doono oo Allah subhanahu wa ta'ala waxba aanay ku adkeen oo ogtahay sida ilaahay u bari ilaahayna subhanahu wa ta'ala uu ka aqbali doona ولذلك أيها النبي صلى الله عليه وسلم سيد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كسو أروري أبو داود بحديث كسوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم مركو دعاء يستو صدح جرب الدعاء كو علين جري marka uu ilaahay wuxuu diisana saddex jeer buu ku celin jiray waa maxay waa laana uu yaqiinsan yahay waa ilxaax weeyaan ilxaax uu ilaahay ma garanaysaa uu og yahay inuu ilaahay ducadiisa uu aqbali doono xadiiskaasi xadiiska Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam idha da'a thalathan waxay culimadu ka daliishadeen in salaada istikhaarada inaad saddex jeer aad ku celisaa inay banaan tahay وأد مرك هراء أنت صلاة استخاريه أتوكتو وحبكوا كل بحوايان هذا مر لبادة كعلسو هذا مر صدحات كعلسو صابته ما حبي لهذين ابن عثيمين بابا مقرن صاحته لين تلمامي مسألة داسي ويري وصدح جرب اللي علنا إياه صابته راح يتهبوا يري وايو صلاة الاستخارة ودعويا إله لبري أيو ولا ما أعرفين بعد ليه إله كل بكي هاكسن إوافجي ما دام أي دعاتها هنا وحى نبيك كسوغن كان إذا دعا صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثا إلهي وبريوه صدح جير بكو علين جري عموما
waxaa loola jeedaa halkan in ilaahay subxaana wa tacaala marka la baryaayo ilaahay la baryo tiyoo la yaqiinsan